السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولي waxaan bartamiinka ka jirnaa qisooyinkii nabiyada kaasoo ugu talagalnay bisha Ramadaan oo maalin kasta soo gelin jirnay qisadaas oo marba nabi aan kaga hadlaynay. maanta qisadeen waxaan kaga hadlaynaa nabiga faraad oo ah Huud. hadda iyo haatan ku soo dhawaada barnaamijkeena oo fidsan. qomkii nabi Nuux intii ka badbaaday halaagii biyaha ayaa la rumaysay waxay ku faafeen dhulka waxaana ka mid ah qom la oran jiray reer Caad waxa ahaayeen dad dhaadheer oo xoog weyn oo la moodo jirkoodu ka sameeyay bir oo bilaadan kale laba mid maaha dadkuna aad ayuu uga baqi jireen muuqaalkooda aad ka weyn awgeed Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraankiisa ku sheegay in reer Caad ahaayeen qom aad u xoog badan wadna Allah u dhameystiray allana qom la mid ah dhulka korkiisa kuma abuurin laakiin awoodaas alla ma iska celin karaan waqti waa maya hadaba reer Caad ahaayeen nabiga la soo dirana ayuu ahaa sidoo kale halkii ay ku dambeeyeen waxa soo dhaw waxaan ka hadlaynaa barnaamijkeena reer Caad waxa ahaayeen qom ku caan ah dhisida iyo daarooyinka dhaadheer ay dadka ugu muujiyeen awoodooda iyo xoogga alla ku manaystay sidoo kale waqti ugu badan waxay ku bixin jireen cunto cunida iyo ciyaaraha dhisida guryaha iyo ciyaaro la ciyaari jiray xilligoodii marka barwaaqatay ay ciyaarahaas aad u ciyaari jireen ciyaaraasna aad ay u jeclaayeen marka ciyaaryaanna buuradushood ay ku ciyaari jireen qofba qof kale waxa ugu faanay jiray gurigiisa iyo hantidiisa taariikhyahanada ayaa sheegay inay dhulka badan u dhis jireen si qofku haybad u helo guryahooduna wax ka badnaayeen baahidooda guryaha badankoodana wuxuu faaruq waxay u dhisan jireen quraata inay isku faaraan iyo ku kibraan xilliyada abaarahana waxay ku duuli jireen deegaamada u dhow si fududna ay cagta u marin jireen waxa lagu sifeeyay jiray xanaaqoodana inuu hamrodiga oo kale oo markay xanaaqaan waxay baabin jireen wax kasta oo awoodaan Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu barkeeyay dhulkoodii oo waxa uu ka dhigay meel doog ah oo soo jiidasho leh isla markaana nimco badan ku taalo dhulka u dhowdhowna ma haysan oo haybad ayaa loo siiyay hada aad waxa hayeen qoom carab ah deegaankoodana wuxuu dhawaa meel la dhaho Shaxti oo ka tirsan deegaanka Xaqaaf oo u dhaxaysa Xadramawt iyo Yaman iyo Cumaan waxaan wahaa gobol barwaaqo ah oo ku yaalay dhul saxaro dadka deegaankooda u dhowna nimcadaas ma haysan oo kale nabi Huud alayhi salaam waxa uu ka soo jeeday durriyadii nabi Nuux alayhi salaam abtirsigiisuna wuxuu noqonayaa Huud ibn Shalah ibn Arfashaqda ibn Sam ibn Nuux alayhi salaam nabi Huud alayhi salaam waxa ka dhashay reer Caad oo ahaa Carab nabi Nuux waxa kamid ah afartan nabi ee ka soo jeeda Carabta afartaas oo kala ah Huud alayhi salaam Salih alayhi salaam Shu'ayb alayhi salaam iyo nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haat qomkii reer Caad waxay ku xigeen qomkii nabi Nuux alayhi salaam Allah subhanahu wa ta'ala markuu quraankiisa ka hadlay qomkii Nuux waxa ku xigsiya qomkii Huud maadaama hayeen qomkii ku xigay oo isla markaa Allah soo diray rasuul iyo inay hayeen qomkii labaad ee la yimaada shirki oo isla markaana caabudo aslaamta una sujuuda waxaana caabudu jireen salaamyo ay la baxeen sad samuud iyo hib Allah subhanahu wa ta'ala markuu soo diray nabi Huud ee ku yiri islaamta waxba tarmaajaan iska daaya ee Allah subhanahu wa ta'ala caabuda qomkiisa ku jawaabeen hadad martaba tiraadid waxba tarmaajaan aslaamteedu oo ku dili doonaa markii Allah subhanahu wa ta'ala nabi Nuux soo diray qomkiisa sidee ugu madaxadkaayeen madaxweyntoodii ay nabi Huudna markii qomkiisa la hadlay ayaguna uga soo jeedeen madaxweyntoodii iyo kuwii dadka horsad wahaa nabi Huud alayhi salaam wuxuu qomkiisa xasuusiyay halaagii iyo hoogii ku dhacay qomkii Nuux waxaan uu sheegay in islaamtu dib iyo dheefna midna wahayn ay u soo noqdaan Allah subhanahu wa ta'ala kadib waxay qomkiisa ku dhaheen Huudo wadwaantii waana xanuunsanaysaa waxaana ku asitay caradii ilaahiyadeeda way uga jeedaan islaamtii ay caabudi jireen kadib nabi Huud alayhi salaam wuxuu ku dhahay ma xanuunsanayo mana waalnay arana ma asimine ee wanin isteexaanayay soo raaca qaatana diintaani leeymi taasoo ka timi rabbigiina abuurtay rabbiga soo abuuray cirka iyo dhulka iyo inta u dhaxaysaba idinkana abuuray oo nicmadana siiyay markastoo nabigu sallallahu alayhi wasallam oo ku dhaho Ilaahay soo rumeeya oo say kale islaamadan wax ku jawaabi jiray quraata al jawaabtaas waa ku raacimeyno kuma rumeynayno islaamtina ka tagimeynee nabi Huud alayhi salaam talaaba kasta uu qaaday wax kasta uu sameeyayba uu qomkiisa ugu soo jeedinayo diinta may raacin ilaa raacday in yar oo quraata markastoo nabigu sallallahu ka qabo shirkiga ay sameeyeen shirkigaas oo cad galanaya Ilaahay waxay ku wadan jireen bal Huud oo kan cadaabka sheegaysid waxaana cadaab ku dalbadeen sidee u dalbadeen qomkii Nuux alayhi salaam kadib nabi Huud alayhi salaam markuu arkay in qomkiisu raacayn ayuu alla weydiistay inuu qomkiisa cadaabo Allah subhanahu wa ta'ala waxa ku dhahay jawaan ay ka shanaan doonaan muddo kadib waxa siintay caradii alle iyo habaarkii nabigooda waxaana ku dhacday abaar kulul abaarta soo socotay muddo 3 sano ah waxaana guray wabiyadii cuntadina way ka yaraatay kadib waxa uu yaaceen xagga islaamtooda kuwaas oo caabudi jireen kadib islaamtoodii ay weydiisteen biyihii roob laakiin waa dhagax oo jawaabaya isaga batiisi la yaabana
kadib Allah subxaanahu wa ta'aala waxa uu soo diray daruur madow daruurtaas madow ee agtiiro ka sidii kadib iyagu waxaas dhaheen salaamyadii aad cabi jirteen ayaa naga aqbalay ducadii balse sidaas way ka dubnaayeen ee wuxuu ahaa cadaabkii Allah maray soogeen taas kadib waxa yimi dabeel iyo dhagaxaan iswataa kadib mid kasta waxa ku caaray gurigiisii balse Allah subxaanahu wa ta'aala ayaa ka soo saaray guryahoodii mid kastana qoortiisii iyo jirkiisii ayaa la kala saaray oo laba ayay kala noqdeen kadib sidaas ayay ku halaagsameen qoobkii dhibta badnaa ee nabigoodana caasiyey allana wuxuu badbaadiyey nabi Huud iyo intii raacday gaaladina wax ku dhacay cadaabkii ku dalbadeen gacmahooda markii uu dhintay nabi Huud calayhi salaam waxa aasay dadkii rumeeyay halka ku aasayna waxa la sheegaa inay tahay meesha ay degnaayeen qoomkii Caad halkaas ay ka sameeyeen wax masaajid oo sanad kasta soo cibaadad tagaan ama soo xaj tagaan dad qaarna waxa sheegaan inay tahay Sacuudiga iyo Urdun balse meesha ku aasan yahay wax og Allah subxaanahu wa ta'aala oo quraata halkaas ay ku dhamaatay qisadii iyo taariikhdii nabiyullaahi Huud calayhi salaam intaas ay maanta ku geeyay barnaamijkeena Ramadaanta waxaan naga tagnaa sidaasoo assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh وحي من القصص التي دلت على الله الجليل قصص تجلت حبكة تالله ليس لها مثيل تالله ليس لها مثيل وحي من القصص الجميل يشفى به القلب العليل وحي سماوي هما وانساب مثل السلسبيل